Shirkado ku yaala Imaaraadka Carabta iyo Israel ayaa xoogooda isugu geyn doona cilmi baarista iyo horumarinta tiknoolajiyadda lagula dagaallamo cudurka faafa ee coronavirus. Waxaa sidaasi Khamiistii ku dhawaaqay Imaaraadka Carabta iyo Israel oo aan lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo si rasmi ah loo wada ogyahay. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa shaaca ka qaaday wada shaqaynta kala dhexeysa Imaaraadka Carabta, taas oo uu tilmaamay inay ku timid xiriir dheer oo dhinacyo badan taabanayo oo ay yeesheen Imaaraadka iyo Israel. Wada shaqaynta kala dhexeysa Imaaraadka ayuu ku tilmaamay Ra'iisul Wasaaraha Israel mid ku kooban aagga cilmi baarista iyo horumarinta tiknoolajiyadda, taas oo uu tilmaamay inay horumarin doonto amniga caafimaadka gobolka. Saacadun kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Israel uu ku dhawaaqay in Imaaraadka uu la leeyahay xiriir, ayaa waxaa warkaasi xaqiijiyay wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta. Wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in laba shirkadood oo laga leeyahay dalka Imaaraadka ay heshiis la galeen shirkado kale oo laga leeyahay Israel si ay isaga kaashadaan horumarinta cilmi baarista iyo tiknoolajiyadda lagula dagaallamo cudurka faafa ee COVID-19. Wakaaladda wararka Imaaraadku maysan shaacin magacyada shirkadahaasi iyo weliba faahfaahin intaasi dheeri ah, balse arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo waayihii dambeba Imaaraadka Carabta lagu xamanayay in xiriir diblomaasiyadeed oo hoose uu la leeyahay Israel, isla markaana Imaaraadka iyo Israel ay qarka u saaran yihiin in ay xiriir diblomaasiyadeed abuuraan. Marka laga reebo dalalka Masar iyo Jordan, Carabtu wax xiriir ah lama laha Israel. Hase ahaatee, wadamo ka tirsan Khaliijka Carabta oo ka mid yahay Imaaraadku waxay sanadihii dambe xiriir dhow la lahaayeen Israel. Xiriirka wada shaqayn ee Imaaraadka Carabta iyo Israel ayaa imaanayo maalmo un ka hor xilliga la filayo in Israel ay bilowdo qorshe uu Maraykanku taageerayo oo ay doonayso inay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka daanta galbeed ee ay haysato iyo weliba dooxada Jordan.